tilmaamaha ama calaamadaha uu leeyahay ninka daaciga guulaystay runtii su-aasha isweydiinta leh waxay tahay guusha dee maxaa lagu qiyaasayaa ma dadka tirada badan lee raaca ma in dowladu qabsado yani maa miqyaasu najaax waayo dadku qofku hadduu suuro najaaxa marka hore u sii haysto wixii aan suurada ahayn wuxuu arkayaa inaanay ahayn dacwa naajixa nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu inooga warramay nebiye aakhiro iman doona iyadoo aan cidi la socon mid qof la socdo mid laba la socdo maxaynu ku tilmaamaynaa ambiyada dacwadoodii ma dacwa faashilaba mise waa dacwa naajixa idan ma huwa almiqyaas markaynu dhahno dacwaddani way guulaysatay miqyaaska aynu ku qiimaynayno ama waxa aynu saarayno instrumentku waa waxa ugu cajabta badan leh qoladan technology-ga isticmaasha oo haddaanad instrument aad wax ku qiyaasta haynin waxaagu qiyaastiisa lama garan karo markaa dacwo naajixa markaynu dhahno maxaynu ku qiyaasaynaa si kooban waxaan odhan karaa uun daaciga naajixa waa kii raacay ambiyada sunnadoodii alambiyaa hum adducaat naajixa iyagunba ah waayo waa dadkii ilaahay u doortay subxaanahu wa tacaala inay dacwadatan xambaaraan nebi faashilina ma jiro ambiyadii ilaahay soo diroo dhammi waa ambiyo wada guulaysatay haddaba maxaa markaynu idhaahno daaciga naajixa sifaadkiisu muxuu noqonaya wuxuun bay noqonaysaa bacdu sifaati alambiyaai fii kitaab illahi inaynu tilmaamno waxyaabaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kitaabkiisa ku sifeeyey ambiyadaasi ile iyagaa ah qaadat lumma iyagaa ah hoggaankii dhabta ahaa ee ummadda muslimiinta ah iyagaa ah dadka najaaxooda uu ilaahay kitaabkiisa uu ka warramayo dhowr qodob oo markaa aan isku xidhnayn baan idin tilmaami doonaa qodobka koowaad aan odhan karnaa waxa weeyaan ducaaddaasi ambiyada ah waxaa calaamad u ahayd kow dadka inay khaaliqooda ugu yeedhayeen dadka cidda loogu yeedhayo inuu rabbi ahaa subxaanahu wa tacaala meel ka sokayso ay ummadda ugu baaqayeen inaanay jirin saa daraaddeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy isagoo nebi maxamed amraya calayhi salaatu wasalaam qul haadihi sabiilii adcuu ila allah kani waa jidkaygii laakiin jidkan maxaa u calaamada ilaahay baan dadka ugu yeedhaya calaa basiiratin ana waman ittabacani aniga iyo intay raacdayba anagoo basiiro ku sugan dadka waxaanu ugu yeedhaynaa ila allahi subxaanahu wa tacaala idan dadka meel ka sokaysa in lagu xidha maaha qofka muslimkii markuu dadka u yeedhayo khilaafaa la soo celinaya iyo dowlad baa dhismanaysay waxaas waa ahdaafi suqra asalku waxa weeyaan dadkan in loogu yeedho ilaahay subxaanahu wa tacaala ambiyada waxa loo soo diray waxa weeyaan dadkan inay ugu yeedhaan adcuu ila allah udcuu ila sabiili rabbik baa ilaahay yidhi waman axsanu qawlan miman dacaa ila allah yaa ka war fiican baa ilaahay yidhi ka dadka ugu yeedha alle subxaanahu wa tacaala idan waxaan leenahay awal sima min simaat ducaadda naajixa calaamaadkooda koowaad waxa weeyaan dadka ilaahay bay ugu yeedhayaan subxaanahu wa tacaala wax kaloo ay ugu dhawaaqayaan dadka ma jiro shayga labaad aan tilmaamaya waxa weeyaan ay ducaaddaasi lahaayeen agtooda aakhira ka door mudnayd adduunka oo alithaaru bilaakhira cala addunya qur-aanka markaad eegta ilaahay nebiyada markuu ka warramayo wuxuu ku tilmaamayaa nebi kastoo leh wamaa as'alukum calayhi min ajrin in ajriya ilaa cala allah wax ajara idin weydiisan maayo nebi waliba waxaa la yidhi waxaad tidhaahdaa sidaa dadka ku dheh wax ajara idin weydiisan maayo dacwada najaaxeedu markaa wax muuqda qofku marka uu aakhira u tahay hadafkiisa wax ka sokeeyo uu raadcaynaya marka aanay jirin
marka uu dacwadiisa uu arkayaa abaalmarkeedu inuu yahay aakhiro inuu guulaysto, aakhiro inuu badbaado, naar inuu ka fogaado, janno inuu helo markuu kaayi. marka nebi waliba fi suurat ash-shu'ara markaad akhrido nebi waliba fattaqu llaha wa atiicuun markuu yidhaahdo muxuu ku xigsiinayay wamaa asalukum calayhi min ajrin in ajriya ilaa cala allah. nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam baycat alcaqaba athaaniya maxay ku salaysnayd ow la galay ansaartii. ansaari way u timi iyagoo ilaah iyo rasuulkiisaba rumeeyey maalinta aakhiraba. waxay yidhaahdeen na raac, annagaa ku ilaalinayne. waxaanu naftayada iyo maalkayaga iyo ehelkayaga iyo dadkayaga saanu u difaacna si la mida ayaanu kuu difaacaynaa bay yidhaha ilaahay rasuulkiisiyo. idan diintan baanu difaacaynaa bay leeyihin. markay taa aqbaleen ayay waxay yidhaahdeen annana maxaanu leenahay. nebigu calayhi salaatu wasalaam muu ku odhan aniga dabaday baa madaxnimada qaadanaysaan, wasiirraa noqon doontaan, dowlad islaamiya oo lagu badhaadho oo barwaaqo badan baa heli doontaan, dowladdaa waxaan qaban doontaa, saasaa heli doonta. waxa kuma odhan. nimankan le naf iyo maalba waanu huraynaa, wuxuu ku yidhi walakum ljanna. nebigu calayhi salaatu wasalaam markay yidhaahdeen maxaanu leenahay annagu markaanu diintan u halganno ee ku ilaalinno, iyagoo garanaya weliba baycada markay gelayeen ay barhkood ay lahaayeen warbalukaadiya hadda carab oo dhan baa meel qura idinkaga soo wada ridi doonta waranka oo waa laydinla wada dagaalami doonaa. wixii iyaga loo ballan qaaday waa maxay? waa walakum ljanna. idan daaciga naajixa ahi waa daaci janno raadinaya. daaciga naajixa ahi waa daaci ay adduunyada kala door bidan tahay ama ka mudan tahay adduunkiisu akhridiisu ay ka mudan tahay. saa awgeed diinta faafinteeda hunguri laguma dalbo, xoolo laguma qaato. hadday ku soo galaan waa walilaahi alxamd. bale culamada badh baa waxay dhahdaan in guusha adduunka la gaadho oo dhammi waa qayb ka mida qofka saalixa camalkiisiiyo loo soo horumariyey. camalkaagii wax ka mida adduunka lagugu siiyey ayaa lagu tilmaamayay. muxuu tilmaamayeen markii muscab ibnu cumayr uu dhintay ee uu shahaadada helay ee uu la waayey wax lagu kanfo ee maradiisii marka madaxa la saarana caguhu muuqdaan, marka cagaa loo saarana madaxu muuqdo. saxaabigii ka warramaya wuxuu lahaa dee iyagu waxay ahaayeen dad wuxoodii oo dhan ilaahay aakhiro oo ugu dibdhigay. muu soo gaadhin guushii muslimiinta ee dambe iyo saxaabadii dambe milyaneeray noqdeen. khanaa'im baa la helay, xoolaa la helay, alf markaad kutubta akhrido oo dhaxalku ka tegay hebelya dhaxalku ka tegay waa millionaires. alf waa milyanka, waayo af carabiga alf wax ka badani kuma jirin tirada ay carabtu taqaanay. saa daraaddeed alf iyo alf la istaba dhigaa unbuu ahaan jiray. milyaneerkani waa erayadan cusub ee nagu soo baxay, milyan iyo bilyank iyo kuwa kale af carabiga hore kuma jiro. saxaabadii dambe milyaneeray noqdeen, laakiin asalku kaa ma ahayn. asalku wuxuu ahaa walakum ljanna. sidaa awgeed ambiyadu aakhiray ka door bidayeen adduunka. ilaahayna qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa wixii dadka oo dhan lagula dardaarmaya inay tahay. bal tu'thiruuna alxayaata addunya waalaakhiratu khayru waabqa ina hada lafi الsuxufi اluulaa suxufi ibraahiima wa muusa. taas baa ilaahay yidhi aakhire laga doorbido adduunka oo aakhiro dadka loo jiheeyo ayaa wixii lafi suxufi luula ahaa suxufi ibraahim oo muusa. nebiyadii horena wixii loo sheegay kaasoo ahaa. idan ayuha alaxiba daaciga naajixi waa ka miqyaaskiisu yahay waxaan maxana ajar ka helaya. waa ka miqyaaskiisu yahay ilaahay raalli ma iga noqonaya. imka maqaayiis badan baa soo baxda oo cusub oo ah dadku inta uu dheef helayo maadiya ayuu ku xisaabtamaa.
dadku intuu dheef maadiya helayo ayuu ku xisaabtamaa waxaana laga yaabaa hadday aad dheefta maadigii noqoto waxa uu qof ku xisaabtamayo ama se dadka aad diinta ugu yeedhaysaa ay u arkaan inay shaqo kuu tahay warkaagu dhegta xoog u geli maayo waa idin in xoogsanayaa lagu arkaa